بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق القائلين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ku jirta barnaamijkan mutakaamilka ee lagu dhisayo dalkeenii gaar ahaan wadada ceeri gaabo. waxaan marka hore ku saabsanay salaada islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. guud ahaan iyo gaar ahaanba dadkan conference-ka jooga maanta waxay diyaar u yihiin niyad midaysan iyo qalbi midaysan iyo gacan midaysan iyo tabaruc midaysan iyo deeq midaysan insha allahu tacaala in la sameeyo. marka walaalayaal waxaan idinku dardaaraya, idinkula dhiirigelinaya sida ilaahayba uu yidhi shaqeeyo oo shaqo qurux badan qabta. nabigeenuna yidhi qofka shaqaynaya ay shaqadiisa ha qurxiyo. marka waxaasi barnaamijkaasi mashruuca weyn ee dalkeena lagu dhisayo oo wadadu ay tahay isgaarsiintu ay tahay horumarka dal kasta uu gaari karo xagga dhaqaalaha, siyaasadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka. waayo haddaan wada jirin iyo isgaarsiinin waxbarashana ma soconayso, caafimaadna ma soconayo, biyaha iyo nalkuna ma soconayaan. marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal dadkiina somaliland aan maqlaya magaalada qaarkood garanayo shanta qaaradood ku nool somaliland iyo shanta qaaradood maanta u diyaara inay horumarkii dalka ka shaqeeyaan. aad iyo aad bay waajib noogu tahay inaan hadal wanaagsan iyo gacan wanaagsan iyo cod wanaagsan iyo midnimo wanaagsan kaga shaqeyno. qof walibana awoodi karo ku bixiyo ayaynu u baahannahay insha allahu tacaala. saxdeena in la adeecana waa waajib. ilaahay baa qur-aankiisa kule: waadiicu llaha waadiicu rasuula wa ulil amri minkum. madaxdiina adeeca ad doorateen. maxaa yeelay dee haddii aan madax jirin oon la adeecin horumar ma jirayo. marka madaxda la doortay ee dawladda maanta jirto madaxweyne axmed maxamed siraayi hogaaminaya iyo wasiiradiisa sharafta leh ee u kacay hadda sida xis uu kamid yahay ee u kacay maxaan ku yidhi horumarka dalka guud ahaan wadada ceeri gaabaan gaar ahaana dalka oo dhan ayaa waxaan idinku salaamaya mar labaad salaanta islaamka. waxaan idinku boorinayaa inaad gacmaha isqabsataan oo adduunkii wakaa maanta hal qol baynu isugu nimid. horumarkuna waxa weeyaan waa kolba sidii loo midoobo ee looga midoobo niyadda. inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in ma nawa. qof waliba wuxuu niyoodana u helaya. marka dee madaxdeena waan adeecsannahay. barnaamijkaana inaan fulino waan isugu nimid. shanta qaaradoodna waan joognaa maanta. waxaa la yidhi ninka shanta qaaradood jooga somaliland dhisi kari waayo dee berita maxaad qaban. xoogga aynu haysanana kii lagama dhigo libaaxa. libaaxu markuu dhintaa la yidhi xooggiisa la tusaa. laakiin ilaahay intaan nool lahay ilaahay hayna tuso xaqa iyo walaalnimada iyo ehelnimada iyo qaraabanimada iyo dadnimada iyo sharafta iyo ciis iyo karaabanimada iyo dowladnimada. marka waxaan kusoo gabagabaynayaa xagga sare ka qabsada, xagga hoosena hagaajiya. waayo dee iimaanka kamida in xagga sare waa la ilaaqa rasuulullah oo qofku ilaahay ka baqo. xagga hoose hagaajira waxa weeyaan waa nebigu wuxuu yihi imaadatu lcadaa can dariiqi oo wax xun laga qaado. wax xun macnihii dariiq oo la sameeyo oo la hagaajiyo oo la qurxiyo oo dadku qof waliba meeshuu doonayo uu maro oo isgaarsiinta iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyo gaaraan. aad iyo aad baad umahadsan tihiin. intaasaan idinku boorinayaa. marka ugu horeysa wasiirka waan salaamaya. kulligiina waa salaamantihiin. rashiidna aad iyo aad baad umahadsan tahay, wakiilka somaliland maraykankow. marka xil gaaraa idin saaran, annaguna diyaar baan idin nahay. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sheekh saacad aad iyo aad baad umahadsan tahay. intaanan waxaan jecelahay inaan laba kelmadood idhaaho. labadaa kelmadood horta marka hore
waxaan rabaa inaan dhammaantiinba idin salaamo qurbajooga reer somaliland ee telefoonka maanta ku jira khaasatan reer maraykan oo anigu aan maraykan la joogo waxa dhammaantiinna aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa waqtigiina qaaliga ah ee aad maanta nala wadaagteen dhammaantiinba sidaa aa ogtihiin ujeedada maanta aan telefoonkan isugu nimin waa mashruuca wadada Ceergaabo iyo dhammaan wadooyinka somaliland ee maanta socda ee lagu guda jiro labadaba waxaan jeclahay inaan laba kelmadood oo kooban ka idhaaho sida maanta ogtihiin qarankeena shacabkeena dawladeena dhammaanteen waxaa jira intaasoo wado oo maanta lagu guda jiro dhismaheedii mid qaar magaalooyinka gudahooda wadadii Salaxley wadada Cad Taboorama Oodweyne waxa maanta halkan isugu keenay waxa weeye wadada Ceergaabo oo dhammaantiinba sidaa u ogtihiin ka dheeraanaysa oo ka badanaysa kuwii hore inooga baahan dhaqaale intii ka badan inooga baahan kulligeenba inaynu isugu tagno noqonaysa mid iyaduna shaqaale abuurid iyo samayso oo economic activity generate garaysa nabadgelyada wadanka qayb weyn ka qaadanaysa wadankiina isku xidhayso oo maanta anigu markaan runta sheego maan tegin Ceergaabo oo weligay maan tegin Ceergaabo waxaan aaminsanahay sababaha aanan u tegin waxaa kamida markii la yidhi 18 saacadood iyo 12 saacadood bay qaadataa in Ceergaabo la gaadho you can imagine dan weyn oo ka maarmi weydo markaa Ceergaabo ku geynaysa laakiin maanta dawlad ahaan iyo qaran ahaan dee xil weyn baa inaga saaran sidii wadanka la isugu xiri lahaa runtii hadalka aan idhi inaanan weligay Ceergaabo arag wax ku tusayaa sida wadanku uu kala go'an yahay iyo muddada uu isu jiro iyo baaxadda intuu leegyahay wadada la'aanteedna waxa khatar inaga jirta nabadgelyadii waxa khatar inaga jira dhaqaalihii oo aan wadanku isku xidhmaynin waxa intaaba ka daran dhibta dadka haysta degan gobolka Sanaag oo haddii ay wadanka intiisa kala imanayaan oo haddii ay baayac ahaan u imanayaan oo gaari ku imanayaan inta gaari kaga jabaysa inta khasaare ka soo gaaraysa aan maanta la malayn karin mashruuca detailskiisa waxaan u daynayaa wasiirka ayaa detailska mashruuca ina siin doona laakiin laba arrimood oo aan rabo inaan idinla wadaago Maraykan ahaan iyo Kanada ahaanba waxaa inoo imanaya guddidii wadooyinka inta aanay inoo iman waxaa la inaga rabaa in magaalo weliba ay guddideedii sii samaysato oo guddidii wadada Ceergaabo la sii sameeyo oo magaalo weliba sii diyaar garowdo anigu shakhsiyan waan idin wada imanayaa haddaa Columbus tihiin haddaa Minnesota tihiin haddaa Seattle Washington tihiin iyo meelahan kale ay dhow Washington DC u dhowdhowba marka magaalooyin waliba ay guddideeda sidaa usii samaysato cali isaga ayaa ka hadli doona Ingiriiska iyo Europe iyo ereyada aan waxaan isku dayayaa inaan xaggan Canada runtii waxaan filaynay inay nala soo gasho maanta laakiin arrin farsamo daraadeed iyo conflict ku yimid daraadeed way u suurtagali weyday marka in magaalo waliba ay guddideeda sidaa usii samaysato dabadeedna hadhowto aynu guddidii national ka dhigno guddigii USA oo dhan aynu ka dhigno oo dabadeedna marka ay guddidii wadooyinka ee wasiiradii iyo guddidii kale inooga yimaadaan wadanka gudihiisa aynu dabadeedna sidaa hawshii iyo shaqada ku bilowno markaa waxaan jeclaan lahaa magaalo waliba inaad idinku hoostii wada hadashaan guddidiinana sii diyaar garaysataan aniguna haddii ilaahay ka dhigo maanta wixii ka dambeeya waxaan idinkala soo xidhiiri doonaa haddii aad guddida intaa ka horeysa la soo xidhiidhan oo wanaagsan haddii kalena aan idinla soo xidhiiri doono idinkala hawlgeli doonaa waktiga awgii intaasaan commentskayga kusoo joojinayaa waxaan iminka kusoo dhaweynayaa cali aadan wakiilka Somaliland ee UK oo isaguna hawsha ay ka wadaan UK iyo halka ay marinayaan nooga warrami doonaa waxaan kaloo ku darayaa waan ogahay inay Maraykan ahaan ilaa imika ay jireen shirar telefoon oo dhacay iyo guddiyo laga wada hadlay iyo laakiin waynu ka wada hadli doonaa haddii ilaahay ka dhigo wixii maanta ka dambeeya waxaan kusoo dhaweynayaa iminka cali aadan cali kusoo dhawow aad iyo aad baad umahadsantahay Rashid sida wanaagsan ee qiimaha leh ee aad munaasabadan inoogu qaban qaabisay marka koowaad waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo dhammaan dadka reer Somaliland ee sharafta leh ee maanta isu soo dhibay ama u soo hiloobay inay maanta nagala qayb qaataan shirkan caalamiga ah waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida wanaagsan ay kaga xilsaarteen inaad ka hawlgashaan ama ugu hilowdaan waxqabadka dhinaca wadooyinka ee dalkeena ka socda
oo aad maanta doonaysaan ama aynu wada doonayno inaynu halkan isaga wareysano kaga wada tashano khaasatan jidka ceerigaabo madaxweynuhu naga xigay muddadii dhaweyd. koley Rashiid baa wadada iyo muhiimadeeda iyo baahida loo qabo ka hadlay oo iyadoo waktigana ayna xirinayno ku dheeraan maayo taa waa sida uu u sheegay dalkeenu uu kala xiran yahay maanta. laba wuxuu ku dhismaa iyada oo uu yeesho isgaarsiin casriga. isgaarsiinta casrigaana wadooyinka ayaa ka kow ah waayo ceerigaabo waa dal Somaliland baaxadiisii ah, waa dal wanaagsan oo masna ah oo dal dhaqaale iyo wax soo saar badan lahaya. wixii halkaa ka soo baxaa dalka intiisa kale haddii ay si dhaqsaa usoo gaarayaan waxaanu ka maarmi lahay waxyaala badan oo dibadda ka keeno. haddii aan intaa taa ku dhaafo oo aan kusoo dhawaado dhinaca qabaqaabada UK, waxaan halkan idinka sheegayaa reer UK inay hawsha gudagaleen oo ay bilaabeen sidii ay uga tashan lahaayeen bal sida ugu wanaagsan ay uga qayb qaadanayaan waxqabadka iyo dhaqaalaha ay u baahan tahay wadadu inta kaga soo beeganta. waxaa jira dad sida Rashiid ba sheegay ee Maraykan ka socota halkana sidoo kale ka socda oo bilaabay inay ka tashadaan oo ay iskooda xilqaamaan bal sidii ay u abuuri lahaayeen guddiyo ay u xil saaraan inay dhaqaalaha soo ururiyaan oo ay wadada hawsheeda galaan. waxaa kaloo jira inay dee anaga nagu soo horeysay oo uu nala joogo wasiirkii mas-uulka ka ahaa guddiga u xil saaran hawsha wadada ceerigaabo oo wasiirkii madaxtooyada ah oo wasiirkii wadooyinka ah oo halkan hadda nala jooga laba hawlood oo hawsha koowaad tahay mid isaga u gaara, labaadna ay tahay inuu hawshan wadada nagala qayb qaato halkan daafurkeeda. marka anagu abaabul ballaaran baanu ku jiraa iminka haddaan nahay reer UK. waxaanu doonaynaa inaanu qabano kulan aada u ballaaran oo daafurkii dibadda ah ama qurba jooga ee dhaqaale ururinta wadada laga bilaabay UK inaanu bilowno. hawshaas ayaanu ku guda jiraa. waxaanu doonaynaa haddii ilaahay yidhaah bishan 16 November inaanu wannan ku qabano shir ballaaran oo ah mid loogu qaadaamayo oo loogu qaadaan ururinayo dadka reer Somaliland laga codsanaya inay si weyn uga soo qayb galaan jidka isku xidhaya ceerigaabo iyo gobolka Togdheer iyo dalka intiisa kale. hawshaas waa noo socotaa. hawshaas sidaan u sheegay dhawaan bay noo bilaabmaysaa. magaalooyinka qaarra waabay bilaabeen iyagoo inay shir qabtaan oo maantadan aan idinla hadlayo magaalada Cardiff waxaa ka socda shir qaaraan ururisa oo ay qabsadeen jaaliyadda reer Cardiff. laakiin mar walba sidaa uu Rashiid u sheegay waxaa wanaagsan in ay jirto guddi national ah oo maamulka guud gacanta ugu qabata. marka UK ahaan marka aanu gobolada dhisno ee aanu guddiyada gobolada iyo kuwa guudba samayno waxaanu doonaynaa in la kulmo oo si guud loo kulmo oo laga wada tashado in la mideeyo guddiyada, in la mideeyo dhaqaalaha oo isla hal guddi oo guddiga guud ee madaxweynuhu xil saaray hawsha in la sameeyo oo taasi mas-uul ka noqoto UK ahaan dhaqaalaha ka soo baxay. sidaynu ognahay website baa loo sameeyey mashruucan iyo wadooyinkaba. dawladda Somaliland marka way monitor garaynaysaa dalwal oo kamida qaaradaha adduunka oo reer Somaliland degan yihiin dhaqaalaha ka soo gala jidka ay ugu deeqaan. halkaasuu ku muuqanaya waxa aynu ka wada tashan doonaayo ay guddiyadu iyagu habeyn doonaan qaabka ugu wanaagsan ee loo xireynayo lacagaha. waxaase ugu sahlanba oo cadaan ah inay noogu qoran tahay oo leafletska iyo website ku jirto inay jiraan xisaabo loo furay oo ka furan shirkadda xawaaladaha dhammaantood. marka xawaalad kasta oo aad ka dirto dalkaad joogto way qoraysaa waana calaamadinaysaa. haddii sida ugu wanaagsan ee lacag loo diri karaana taasaa bay noqonaysaa. laakiin iyadoo details badan ay dadku ka tashan doonaan meeshay degan yihiin intay magaranaysaa u saaraan sida ugu wanaagsan ay u maamuli karaan ayaa taa go-aan laga gaari doonaa. dee guddiga guud ee hawshan xil saaran siduu inoo sheegay Rashiid way soo baxayaan. halkan waxay kusoo beegan yihiin weega dambe insha Allah. 17 halkan kulamaanu ku qabanaynaa. waxa kale oo aan filaya inay qorshaha ugu jirto inay Yurubta kalena ay booqan doonaan. marka
haddii aan la yidhahdo 17 ayaanu kolley guddiga uu wasiirka hoggaanka ka yahay ee ay dhowrka wasiir ku jiraan ay soo saari doontaa qorshahooda iyo balaanka ay ugu talagaleen inay hawsha ay qurbaha ku marayaan iyo schedule-kooda iyaga nala socodsiin doona waanaynu ogaan doona markay isu yimaadaan. waxaa si muhiim oo aan kaga baxay hadalka ku dardaarmaya Somaliland maanta fursad bay haysataa, waxay haysataa fursad muhiim ah oo ah inay isku xidhi karto waddankeeda maanta sidaa ka sheegayo kala xidhan 18 saacadood u dhexeeyaan yani Ceerigaabo iyo Burco. waa wax runtii aad iyo aad ugu dhib badan in Ceerigaabo askari ka soo raacdo oo 18 saacadood ka soo gaadho Burco oo aynu ku qiyaasay 370 kilomitir. يعني waxay noqon lahayd 4 hours 3 saacadood iyo bad lagu yimaado haddii ay wada caadi tahay. marka walaalayaal waxaan ku dardaarmayaa inaynu jeebkeena furo, inaynu dalkeena dhisano. caalamkuna waxay wixii tarayaan markayna arkayna wax qabsanayna. shalay halkan waxaan kaga dhufay wasiirka arrimaha dibadda, isaguna hawshaas unagula sii dardaarmay inaanu shirkan maanta uu jeclaa inuu nagala soo qayb galo, laakiin dan muhiim oo ka weyn ayuu yeeshay oo maanta madaxweynaha Djibouti ayuu la fadhiyaa oo uu kala hadlayaa qadiyadda Somaliland iyo hawlaheena. marka wuxuu nagula sii dardaarmay inaanu salaan halkan idinka soo gaadsiino oo uu isna ifaray inaan halkan ka sheego inaan idinka codsado inaad hawshaa u hagar baxdaan. daweynu isweydiin doonaa wixii su-aalaana. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. cali aad iyo aad baad umahadsan tahay. wakti badan idinka qaadan maayo. iminka waxaan kusoo dhaweynayaa microfonka ama telefoonka wasiirka madaxtooyada xirsi cali xaaji xasan oo soo ah wasiirka hay-adda waddooyinka. xirsi kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. دمان خيارته يسوتي من هالك كان كده جاي سنيسا شركة درفيدة أدونك كده جاي سنيسا تلكونفرنس كان وعنكو سلام يا سلام الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام كدي وفنتي آدي آدان دينكو كم هاد علينا يا وقتي نقال يا وصورتين lacagtiina ha u quudheen qof walba uu kusoo gelayo lacagtiisii iyo dareenka isku mid ah ku qaabisheen. aad baan idinku bogaadinayaa sida ugu heelantiin dalkeena inay wax u qabataan iyadoo aan dhan kale maanta inaan isugu yeedhin ay ahayd dantaynu maanta isugu nimid dantaa waddada iyo waddooyinka ka guud ahaan sidii horumarkeeda looga qayb jiri lahaa sidaa ay sheegeen safiirada cali iyo nicolas rashiid. waxaa guddiga iman doonaa insha allahu tacaala. guddigiisa waxay iman doonaan halkan 10 bisha ilaa 11 ayay imanayaan. halkana waxaanu ku leenahay markaa shirkii waa cali sheegay 16 17 la qabanayay. sidoo kale waxaan oo qorshaysan in Europe iyo North America loo soo gudbo iyo Carabaha loo soo gudbo oo yani waftiga ay isqaybiyaan oo meelaha kala duwan isu soo qaybiyaan. marka hadda la ka dhigo markaan halkan nimaadnaan qorshahayga eegayna insha allahu tacaala ayaa siday suurtagal ku tahay. dhammaantiin waxaan mar labaad ogaadin iyo ambaliyo idinka siinaya sida ay isugu soo agaasinteen. waxaan jecelahay malaa yani waxa laga yaaba inaana kala war lahayno war waxaa ugu filan intii iminka ay labada safiir sheegeen. laakiinse haddaan si kooban u dul maro yani usheeda waxaan horta ka horraysiinayaa inaan madaxweynaha salaantiisa yani idiisoo gudbiya madaxweynaha dowladda Somaliland oo salaantii uu noo soo furay qurbo-joogga markaan la kulanno aan idiisoo gudbino oo soo salaamaya dhammaantiinba. intaa kadib mashruuca waddada Ceerigaabo waa dareemi karaysaan waa mashruuc ballaaran. waddooyinka guud ahaana Somaliland waddooyin badan baa ka socda oo mashaariicdii waddooyinka runtii ay ka tis qaadeen qaarba meel ay marayaan. waddada Boorame waxaa ka dhiman 500 mitir baa ka dhiman oo aan filayna insha allahu tacaala in la dhameeyo dhaqso loo dhameeyo. kharashkeedii iyo hawlaheedii waxeediina way u dhan yihiin. waxaanu rajaynayaa insha allahu tacaala yani waa la gabagabay waa la dhameeyey. waxaanu rajaynayaa insha allahu tacaala iyada furisteedii waa wax technically wax dhaqaalo iminka noogu hadsan ma jirto. wixii dhaqaalo nooga baahnaayeen way naga heleen, wixii bulshada ka raadsanayeen way ka raadsadeen. marka iminka waxa la sugayaa insha allahu tacaala furisteedii. waddada Wajaale 10 kilomitir bay ahayd
8 kilomitir baanu samaynay 6 kilomitir waxaan ugu talagalay ganacsada reer Wajaale weli maana noo suurtoobin inaanu ganacsatadii ka helo oo bandhigeedii runtii maana samayn 2 kilomitir waxaan ugu talagalay reer Gabiley inay sameeyaan oo Gabiley dowladda hoose ay samayso marka 2 kilomitir weli anaga dowladda anagu hadday marka waxaan rajaynayaa 10 kilomitir anagu qorshe ahaan aan ku talagalay dowladda dhexe inaan samayno يعني 2 kilomitir baa nooga dhabar intii kala badakeedii waa naga gabagabo wadooyinka oodweyne sidoo kale iyaduna meel fiican bay maraysaa wadadooda reer togdheer baa muddo waday oo yani reer togdheer ahaan muddo ku waday waxaana kala qayb qaadanay dhowr jeer dowlad ahaan waxaana kala qayb qaadanay dhowr jeer oo guddiga lagala qayb qaatay finally markaan aragnay wadadu inay dheer tahay culays badan ay leedahay waxaanu si full force ku galay hay'adii wadooyinka iyo wasaaradda madaxtooyada waxaan si full force ku galay inaanu hawshii la galo la qabano waxaanu u diray qalab aan ku wareejinay qalabka macdaadka loo yaqaan xalafyada waaweyn iyo waxa weeye kala duwan sidoo kale waxaanu kala qayb galay qorshihii wadada iyo dhaqaalihii waxaanu bixinay burco ilaa oodweyne intii shayga iyo daamirka mooye wixii ground ahaa la dhigayay waxa weeye wadada la dhigay carakaawo iyo dhagax la dhigay lacagteedii waanu bixinay waxaanu ka sugaynaa markay dhameeyaan ilaa halkaa in fayskii labaad oo daamirka iyo baalka la yaaday shayga la dhameeyo sidaa oo ay tahay weliba 4 kilomitir ayaanu aanu bixinay dowlad ahaan iyo 2 ganacsata ay bixiyeen iyo mid ay qodood hoose weli aan 5 kilomitir ma dhaqaaqin ayaa 5 kilomitir baa iyaguna bilowga ah oo yani lacagtoodii already la ballanqaaday ama la ballanqaaday oo labadan ballanqaaday inta kalena ganacsatada iyo dowladda hoose waanu filaynaa marka la dhameeyo fayska hore waxa weeye laamiga jilcadaha marka ay garaacaan wadada daamirka iyo shayga lagu shubaa in waxay 5 kilomitir oo horeeyay loo hayo wixii kale insha Allah taala laga qayb qaadanayo waxa la wada orole xagga xoolaha ay ururinayaan deegaanka ka ururinayno wax in ku dhow 2 sano imka inta qiyaastii la sheegay in la ururiyay qorshaheedii la wadaa waxaanu rajaynayaa insha Allah taala iyaduna in meel fiican soo gaadho wadada salaxlay muddo socotay deegaanka runtii tacab badan geliyay iyo guddiyo iyo odayaal isxilqaamay tacab badan bay geliyeen dowladuna waa u soo bandhigeen waxa ilaa 13 kilomitir iyagoo maraya ayaa la yimaadeen iyagana sidoo kale waxaan ku talagalay inaanu laxaad gelino oo si laxaad loo gelino 5 kilomitir oo horeysay waanu shubnay waxaanu ku ballan qaaday 5 iyo 5 kale ku darayeen marka 10 ka dhameeyaan inaanu 5 kale ama 10 kale idin soo shubno iyaguna way socotaa si wanaagsan bay u socotaa hawsheedii wadada la yiraahdo wadada cad la yiraahdo waxa loogu talagalay horta wadadu waa wada dheer laakiin in dawga cad oo meel aad u dhibadan rafaad badan la sameeyo waxa 4.5 kilomitir buu ahaa dawgii imika waa gabagabo waxa insha Allah taala rajeynayna in laga wada qayb qaato iyaduna wadada markay bilaabanto laakiin marka hore focus ku dawga horta in la sameeyo laga jeebo ahaa dawgiina waa gabagabo marka uu soo noqdo wadada Cergaabo ahayd muhiimada weyn aan doonayay inaan kala hadlo hadda waa wado runtii muhiimad gaar ah oo waxa weeye culus u leh dalka waxay tahay wado qiyaasteeda lagu qiyaaso runtii markii u dambeysay aanu mitrinay 300 kilomitir adu 284 ayaa surveyorsku nagu sheegeen oo markii hore intii noo sheegay waxa ka soo yaraaday surveygi dhabta ah ee socodka u dambeeyay aanu qaadnay waxa weeye 284 kilomitir wadadaas runtii waa wado hadday tahay dhaqaalahaan iyo hadday tahay nabadgelyo iyo hadday tahay horumar iyo hadday tahay isku xidhka dalka guud ahaanba oo goodoon kala ahaa waa arrin muhiimad aad u weyn leh oo filayo qof walba oo ku jira inuu dareemi karo muhiimadda ay leedahay sidii la sheegay laba cisho dhow ama maalin kaamil in loo socdo oo haddii wax ka dhacaan ilaahay inaguma keeno oo haddii dhaqaale laga doonayo oo haddii qof xanuunsanayo oo haddii qof safrayo hadduu qof dalxiis lahaa wax walba waa yani uu ku xayirmayaa marka dhibta ay leedahay runtii waa dhibaatooyin in laga wada dheregsan la dareemayo qofka tagay uu dareemaya ka tagi waayeen sida uu Rashid sheegay dhibta uu tay kari waayay uu dareemaya in meesha aan meel hawl yar ahayn waana gobol kamida gobolada Soomaaliland oo waliba dhaqaalaha la kumanaysto u baahan inaynu ka shaqaysiino waxa ku soo ururinayaa gobolkaas wuxuu ku xidhan yahay iminka gobolada Soomaaliya ku xidhan yahay dhaqaalihiisu oo yani ay dantu ku kaliftay inay xoolaha ka dhoofiyaan oo uga soo degaan duruufta
go'doonka darteed waxaynu u baahannahay haddaynu dalka yani jiritaankiisa iyo qarannimadiisa iyo sustainabilitygiisa ka fekerayno inaynu dalka kusoo xidhno oo aanu noqon go'doon inaga noqon intaa markan ka imaado waxa weeye waddadu waa dherarkaasay leedahay naxaadkaasay leedahay baahidaasaa loo qabaa waxa weeye intii dee tagtayna way aragtay inta kalena waa sida aan sheegayo waxa weeye dhibtaa ilaahay way ka dheragsan tahay waddadaasu hadday tahay waxa weeye samaynteeda iyo hawsheeda iminka la gudagalay waxa weeye la bilaabay waxaanu ka bilownay in dhaqaale loo sameeyo mar xagga dhaqaalaha laga hadlayo oo laga yaabo inay isweydiiso dawladdu maxay u haysaa waxaanu baasgaraynay sharciga laga yaabo in saxaafadda kala socoteen xoolaha iyo loo saarayo bointifaadka loo saarayo iyo gaadiidka loo saarayo lacag ilaa 4 milyan oo dollar ayaa aanu u baasgaraynay sidoo kale intaanaan weydiinin bulshada reer somaliland qaadaan waxaanu ka bilownay oo madaxweynuhu ka bilaabay somaliland in waxa weeye dadka dawladda u shaqeeya min madaxweyne ilaa askari ilaa macallin in la weydiiyo qaadhaan la weydiiyo qaadhaankii la weydiiyey waxaa ka soo ururay yani waa wax soconaya sanadka aynu soo hadda ku jiro waxa weye 2013 bishan ilaa iyo bisheeda waa wax soconaya waxa weeye xalay bishiina dhaaftay October baa laga bilaabay ilaa bisha dambe October waa wax soconaya 12 bilood waa 2 milyan iyo badh baa loogu talagalay qarashkii lagu qiyaasay laga ururinayo laga sareeyo shaqaalaha dawladda hadday ciidan tahay hadday shaqaale tahay hadday golayaal tahay 2 milyan iyo badh lacagta 6 milyan iyo badh baa dawladdu aan ugu talagalay aan u diyaarinay waxaan rajaynayaa insha Allah taala in ay sidoo kale ay ka timaado bulshada reer Soomaaliya iyo ganacsatadooda iyo tijaartoodana inay intaa in leeyahay ka badanba ka timaado sidoo kale waxa xusid mudan qalabkii waa noo diray oo qalab 2013 aan lacag 2 milyan oo dollar u sii gelinay ayaanu ku diray qalabkii qalab badan baa runtii qaaran noo yimaadeen qaaran noo soo raray inaan rajaynayo insha Allah taala inay noo yimaadaan qalabkaas oo qalabkaan ugu talagalay wadooyinka oo dhan lagaga shaqeeyo waxa weeye qalabkaasuna waa qalab aan runtii hadday tahay macdaadkii hadday tahay gaadiidkii hadday tahay kii rarayay iyo hadday tahay yani dhinacyo kala duwan wixii wadada looga baahnaa badankeeda laakiin se kuma dhamaanaysa intaas umada dafcad baa la diri oo insha allahu tacaala waa lasoo kordhin waxaa sidoo kale aanu ka rajaynaynaa bulshada qaaraanka bulshada aanu weydiinaynay oo runtii nagu qaabishay si xamaasad iyo firfircooni leh reer Cerigabo kaliya intii aan safarka ku joognay 250,000 ayay waxa weeye intii kaashka ahayd ay ballan qaadeen ama na soo gaadhay gacanteeda soo gaadhay ganacsatadeeda iyo haweenkeeda iyo dhalinyaradeedu ka ururiyeen sidoo kale waxa weeye waxay ku dhawaaqeen xoolo ilaa 30,000 aan filayo inay ka badan yihiin ayay ku dhawaaqeen waxa weeye waxa muuqata runtii inay bulshadu si xoog leh ugu soo jeesatay Hargeysa sidoo kale ilaa iskuulka ilaa iyo dukaamada ilaa meheradaha waa la isku dayay in la maro si laxaad leh ayay bulshadu ugu kacday gobolladoo dhanna sidaas oo kale gobol walba waxa weeye waxa lahaa guddigii goorday imanaysaa waxa ka muuqatay runtii dareen dadku isku mid ah inuu ku qaabilay hawshatan waxaan idinka rajaynayaa qurba jooga in ay idinku qayb laxaad leh ka qaadataan sidii hore dalka dhismihiisa iyo horumarkiisa uga qayb qaadateen waxaan filayaa inaan la idin tilmaamin horumarka dalka halbowlana waa u tihiin marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaad ka qayb qaadataan haddii aad tihiin qurba jooga reer London iyo reer Mareykanna dee waxaa filayaa inay meelo ugu waaweynaa yihiin oo la doonayo inay hormuud ka noqdaan marka taa laga yimaado sidoo kale ganacsatada iyo tujaarta waa loo bandhigayaa insha Allah taala qorsheedu uu socdo waa loo bandhigayaa waxaan rajaynayaa insha Allah taala iyaguna inay qayb laxaad ka qaataan waxaan ku soo ururinayaa wadada Cerigabo muhiimadaas ay leedahay dhaqaalintaas aanu haynaa waa laga yaabaa inaad isweydiiso amaan arkayay dadka qaarkood inay isweydiinayeen qaabka wadada maamulkeeda iyo dhaqaalaheeda loo maamulayo ama dadka qaarkoodba lagu soo dhex tuuray fikrad oranaysa maxaa guddi madax banaan loogu sameyn waayay maxaa halkan loogu sameyn waayay waxaan rajaynayaa in aan ka wada jawaabo waa laga yaabaa in qaar badan ay su'aalo ku sitaan laakiinse wixii ku xaganayo dhan insha Allah taala waan ka jawaabi marka laga hadlayo maamulka waxay leeyihiin wadooyinku hay'adda leeyahay RDA Road Development Agency leeyihiin oo muddo dheer jirtay ma aha wax imka la aasaasayo hay'adaasu
qaabkay u shaqayn jirtay markii hore waxay ahayd oo loo sameeyey muddo 10 sano mara ku dhow ka hor waxaa loo sameeyey inay lacag ka hesho donorska oo dadka deeq-bixiyaashu ay lacagna siiyaan dawladuna waxaan tanbeersanahay ama ka yar inay ku darto ay ku darsato dhaqaalaha ay bixiyaan waxa ugu dambeysay 8 sanadood ka hor ayaa ugu dambeysay dhaqaale ay soo siiyaan deeq-bixiyaashu keliyana waxay ku koobnayd xilliyadii bridge-da la sameeyay toddobaadada bridge ama tobaniyada bridge ee la sameeyay ayaa dhaqaale la taaban karaa wixii kale waxyaalo yar oo maintenance ama waxa weeye wadada maintenance-keeda meelo go'ay mooyee wax wado cusub ilaa idankii 10 mitir ahaade wax wado cusub inoogu deeqa oo ina siiya ma inaan arag waa laga yaabaa in dadka qaar waxa weeye aan fahamsanayba ayadaan hay'ad baa lacag bixin jirtay hay'adaha lacag la siin lahaa waana dareen xun oo bulshadeena ku abuurmay inay ka fikiraan wax walba hay'ad baa inoo sameynaysa oo aakhirkii la yaado xashiishka inaan ka qaaday hay'ad baa inaga qaadaysay marka ma jirto hay'ad ina siin jirtay 8 sanadood wax lacag ayna siisay hadday ina siiyaan waxay xilliga hore 10 sano ka hor waxa weeye fiiska la sameeyay iyo maintenance-ka xilliga dambe waxyaalaha yar ku bixiyeen kilometer ka horeeyay intii aan la soo wareegnay wadadan oo la sameeyay oo cusbaa ma jirin ba tootari aan ahay wadada doorame ee aan la bilownay dawladda la bilownay dadka bulshaduna inta ay si agaasin badan uga qayb qaateen markan ku soo noqdo mawduuca waxa weeye hay'adu waxay muddadaas shaqeynaysay qaabka u shaqeynaysay qaabka aan sheegay ayuu ahaa oo ay tahay ay maamusho commission baa maamulayay commission-ka maamulayay waxay ahayd lacagta soo gasha inay ku bixiyaan project ku bixiyaan oo ay siiyaan cid oo waxa weeyaan dadka waxa weeye contractorska inay inta badgareeyaan siiyaan waxa dhacday inay lacagtii sida aan sheegay 8 sanadood aan lacag soo gelin oo hay'adeeni wadada sameeynayay iyo commission-keedii aan lacag soo gelin aan ka ahayn dhaqaalihi yaraay contribution-ka dawladdu bixin jirtay oo koobna oo tirada ka yaraa waxaan filayaa inaan kula wareegnay 200,000 waxay kaliya ku koobnaayeen sanadka 400,000 waxay ku koobnaayeen in wadada berbera godkeeda la yara awdawdo oo wax lagu guro dhagax lagu guro sanadka dambana uu ka soo daato wadooyinkan kalena marba wax yara la awdawdo ayay ku buuxinta yar bay ku koobnay oo marba shirkadaha dhismaha mid la siiyo markii aanu daraasaynay runtii daraasadana ay qayb ka ahaayeen commission-ka gudoomiyihii commission-ka xilligaa joogay maxamed Jibril Jaamac wuxuu soo bandhigay sidana ay wuxuu socdaan inaanay suurtagal ahayn iyo madaxweynaha uu soo bandhigay kadibna madaxweynaha markii uu soo bandhigay waxa loo yeeray wasaaradda hawlaha guud wasiirka hawlaha guudna qoraal uu ka soo qoray inuu la qabo ra'yiga caynkaas inaanay waxba ku soconaynin kadibna waxa madaxweynuhu go'aan qaatay in maadaama oo maalin walba يعني ay dadkii bulshadiisu agaasinayso wadooyinkii oo ay doonayaan inay wax qabsadaan madaxweynaha u imanayaan oo qaadaan weydiinayaan in madaxtooyadii laga rangareeyo hay'adii lana yimaado vision cusub la yimaado oo ah aan inagu wax qabsano inaan gacan kale sugna wax qabsano maadaama 400,000 contractor-ka la siinayo kaliya ay ahaydna inagu aynu qalab soo iibsano budget-kana aan ugu daro theory-ga dalkana priority-gana aan ka dhigno priority number 1 wadooyinka maadaama baahi loo qabo siyaasay ku soo baxday plan-kii iyo qorshihii dawladda 5 years plan-ka aad ka dareemaysaa plan-ka halkay kaga jirto inay priority number 1 tahay siyaasay ku soo baxday in budget-ka loogu geliyo siyaasay ku timi in la iktiraaco in wadooyinka cusub si laxaad looga qayb qaato oo wadadii ugu dheerayd loo qumo oo waxa weeye hankeedii lala yimaado oo aynu iminka maanta isweydiinayno sida ay tahay waxa weeye ay halka marayso waxa laga yaabaa dadka oranaya ma guddi madax banaan loo sameeyo oo waxa weeye dawladda waxa weeye ma laga daayo waxa ku jirta su'aal oranaysa ma dawladdan la aaminay ma dawladii qaranka maamuleysay ee lagu aaminay ee loo doortay ayaan la aaminay mas'uuliyadda contribution-ka ee qaadaanka lagu soo ururinayo ayaan dawladda gacanteeda loo aaminay iyadoo 152 million aanu handal gareen oo gacanta ku hayno dawladdu ma taasaan loo aaminay waxa hadalada qaar aad ka dareemaysaa qaar oranaya sidee loola xisaabtamaya dawladdu waxay leedahay loola xisaabtamo waxaanay leedahay amaankii dawladnimo oo xisaabta loo mariyo waxa intaa ku dheer waxa uu project-tiganu aanu ka soo diyaarinay qorshahan insha Allah taala waa ku arki doontaan waxaan ku soo bandhigaynaa biidnillaahi taala waqtiga
inta uu qaadanayo iyo quality-ga wadada iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda iyo everything waxaan kusoo bandhigaynaa insha allahu taala si transparent ayaan ugu soo bandhigaynaa somalilandroads.com. sidoo kale qof kasta oo lacag laga qaado ha yaraato ama ha badnaato sida iminkaba ku jirto aad geli karto qof kasta oo lacag la soo gaadsiiya waxaa lagu soo bandhigaya website-ka. sidoo kale inta mitir ama inta kilomitir ay samaynayso hadday $1 tahay waxay u dhiganto ayaa la soo qoriyay waxaasay u dhigmaan oo intaasay u dhigantaa ayaa la odhanaya. marka si loo helo wixii la soo gaaray iyo accountability-geedii oo rasmiya waxa halkaa ku qoran ee la soo gaaray waxa weeye wax ma lagu sameeyo wadada intii ay lahayd ma lagu sameeyo. sidaasi lamida waxaan ugu talagalay inaan lala sugin xisaabaadka guud ama accounting generalka iyo waxa weeye auditing generalka sanadlaha usoo saara xisaabta dawladda usoo saara inaan taa lala sugin quarterly internal audit baanu leenahay quarterly buu usoo saaraya insha allahu tacaala usoo saaraya reportkii quarterly waxaad arki doontaa oo website-ka lagu soo publish garaynaya quarter kasta wixii la bixiyey iyo wixii la qabtay. sidoo kale procedure-ka iyo hanaanka wax loogu qabanayo yani wadada wax loogu qabanayo lacagta waxay ku dhacaysaa akoomada aragteen hadday tahay national bankeena central bankeena hadday tahay kuwa kale way ku qoran tahay daabshiil salaama zaadka way ku qoran tahay akoonadaas oo dhan dadka wax kusoo shubaya. akoonada noocaasa sidii guddigii aan gudoomiye ahaa aanu isla garanay waxaan u qoondaynay inaan waxba laga saarin ay noqdaan akoomo lacagta qaadhaanka lagu ururiyo markay ururto lasoo ururiyo ay ku ururto in hay-adda maareeyaha hay-adda uu soo qoro proposal wadada Ceerigaabo inta kilomitr uu samaynayo iyo qorshaheedii kadibna in guddiga loo bandhigo injineeradii loo yeero marka la isla qaato intaasaa lagu samaynaya ama waxaasaa budgetka noocaasa lagu samaynaya in la baasgarayo 3 xubnood oo guddiga ay saxeexayaan oo laanteed ku baxaynin qaabkay ku baxaysa procedure-ka flowga lacagtuna waa sidaa. waxaan kusoo gabagabeynayaa marka hanaanka maamulka iyo lacagta la sheegayo qolyaha qurbajooga laga yaabo in badan accountability-gu meel kaga dhigan yahay. accountable baanu nahay publica diyaar baanu nahay laakiinse waxa weeye fikradda odhanaysa dawladda la aamini maayo oo daxaha loo dhiibo taas fikrad sax maaha. waxaanu leenahay qolyihiina qurbajooga iyo qolyaha kale ee waxbaanu bixinaynaana wartooda anagu 6 milyan iyo badh baanu bixinay dawladda waxaa nagula xisaabtataa nagu darsada intaana kaftaraan bay iga tahay. intaa haddaan kaga tago wadada guud ahaan halkaasay runtii arrinkeedu marayaa. intii wixii la ballan qaaday waa kaa waxaanu idinka rajaynaa insha allahu tacaala idinkuna inaad qayb laxaadle ka qaadataan in waxa weeye si laxaadle looga wada qaato hadday wadadan inoo dhisanto marka laga tago isku xidhka iyo nabadgelyada iyo dhaqaalaha ay kordhinayso iyo intaba marka laga tago waxa ay viability-ga Somaliland waxay qiimo weyn u kordhinaysaa inaynu nahay qaran wax qabsan karaya sida dunida loogu majeeraso inaynu aan cidina ayna caawin dalka waxa weeye dib u dhiskii iyo nabadayntii samaynay dib u dhiskiisii dib u dhisanay waxa weeye dawladnimadiisii iyo institutionskii dawladeed aynu dhisanay iyadaan cidina inaga caawin doorashooyinkii aynu qabsanay nidaamka dawladeed aan cid inaga caawin oo dunidu ay inagu dafirtay runtii dunidu ay sida inoogu dayaceen aanay inagala qayb qaadan haddana ilaahay subxaanahu watacaala uu inagu cawilay in dadkeenu ay dadaalkii ay la yimaadeen ay ilaa hadda Somaliland ku taagan tahay. waxay viability-ga ku kordhin doontaa Somaliland inay Somaliland tahay ay u qoysgoyso inay tahay dalaan soo noqonayn oo wax qabsanaya oo horumaraya oo aan sugaynin meel la isku cunayo. waa mahadsantihiin aad iyo aad baan idin salaamaya wixii su'aalana insha allahu tacaala waa idinka jawaabaya wixii su'aala. waa mahadsantihiin wasiir aad iyo aad baad umahadsan tahay. iminka waxaynu gelaynaa su-aalaha waxaan rabaa inaan 2 arrimood ka cudur daarto. runtii dadku aad bay u xiiseynayeen shirkan telefoonka oo su-aalaha aad u fara badan ayaa emailka iyo telefonkaba laygu soo diray su-aalo almost 60 gaaraya laakiin markaan isu soo ururiyey waayo dadku su-aalo isku mid ah ayay ii soo wada direen. waxaan halkan inoogu hayaa 16 su-aalood oo reflect garaynayo su-aalihii dhammaan isoo gaaray oo dhan. raashka ugu horeysa markaa wasiir su-aalahan intooda badan runtii waxaa weyihiin kuwa adigu aad ka jawaabi karayso.
su-aasha ugu horeeya waxa weeye waxay ka timi saciid cali oo jooga holland. su-aashuna waxa weeye caawimada deeq-bixiyayaashu bixiyaan xukuumaddu lacagtaa bar ka mida ma gelinaysaa mashruuca wadada Ceergaabo? maxaa arrintaa ugu talagashay? waa mahadsan tahay saciid, waxaad u leedahay waa mahadsan tahay, dhammaantiin waa mahadsantihiin. ma jirto wax naga soo gaaray deeq-bixiyaasha ilaa hadda. waxaa jira 2 milyan oo ay ballan qaadeen oo ilaa imika 3 bilood marba laleeyahay yani marba su-aalo iyo marba waxa weeye consultant baa loo yeeraya iyo marba waxa weeye ilaa hadda aan ka soo dhammaan oo ay leeyihiin markii u dambeysay feasibility study ay samayn doontaa shirkadooda. marka waanu diidno, waxaan ku leeyahay haddii waxba aad shirkadooda aad siiso oo aad ku bixisaan oo 2 milyan ba halkaa ku dhamaato dee waxba na tari mayso. marka adigu calaa kulli xaal maalintii u dambeysay intaana soo bixin baanu kulanay 2 milyan baa wax ballan qaada jira. 2 milyan specifically wadada Berbera iyo Hargeysa u kala baxda ayay ugu talagaleen. waxaanu markaa u bandhignay wadadii Berbera iyo Hargeysa oo aanu badankeedii samaynay baan u bandhignay. marka waxaan ku leeyahay wadada Berbera iyo Hargeysana qaar geliya wadada tan labadan wadana u kala jiro wixii kale Berbera iyo Burco kala baxa ama Hargeysa iyo Boorame. marka taasaan ninka qorsheedii isla wada wax kale oo naga soo gaadhay 2 milyan oo aan filayo sanadka cusub 2014 haddii wax laga helo wax ka horeeya aanan ka filaynin oo marka sanadkan oo dhan oo ku jirtay lacagtii 50 milyan ka ahayd trust bank wax la yiraahdo ay inoogu ballan qaaday dowladda Ingiriiska iyo Denmark ayaa lacagtii trust bank ee dowladdaas bixiyeen ayaa shirkad kale loo dhiibay oo maamulaysa oo iyagu keensadeen oo ay EU iyo dibadda keensadeen. tiiba haddana iyadu maalin walba yani waxyaala fokrasi iyo ixtiraaqaad iska badan oo iska dareemi karaysaan ay jiraan. marka isku soo duuduubo lacagta 50 milyan ka 2 milyan bay wadooyinka ugu talagaleen. wax kale oo iminka ku jira ma jiro. laakiin se waxa jirta markaan weydiinay imka wadada Ceergaabo waxay yiraahdeen bal qorsheeda aan gudbinayno soo gudbiya. marka qorshihii iyo istadigi baan qoray waana u gudbinayna insha Allah taala. way jirta qoraal aan u gudbin laakiin se qoraal dadkii aan u gudbinayna hada la ka dhigo waxa ay fid garanayaan ay qabanayaan dadka waaye. su-aasha labaad waxay ka timi Cabdillaahi Bulaale oo jooga Minnesota USA. dhowr su-aalood bay ahayd laakiin su-aalihiisi mid baan ka soo qaatay waayo kuwa kale oo dad kale ayana soo weydiiyey maxaa lagu estimate gareeyay kharashka ku baxaya mashruuca wadada Ceergaabo? wadada Ceergaabo aslan sida caadiga standardka waa 300 kilomitir. waa kilomitirkiiba waxa lagu qiyaasaa waa 250 kun baa filayaa in la yiraahdo standardka caadiga weeye. marka laakiinse ilaa 75 milyan weeye marka standardka caalamiga lagu eego. annagu se waxaanu eegaynaa inaanu qalabkiisano librarkii iska jebino in lacagteedu aanay 30 milyan nagaga badan. laakiin si official aan usoo bandhignaa hadda la ka dhigo markay daraasadu dhamaato injineeradii hadda jooga Ceergaabo iyo inta ceelafka ka dhaxaysay wadaan oo surveygi bay qaadayaan. surveyga waxa ka soo bixi doonta meesha wadada waxa weeye inta la yaray noqonayso meesha ay ka bayrayso meesha ku bayrayso inta waxa weeye kor loo qaadayo meelaha bridgeska iyo kalfadka ka soo baxay waxyaalaha yani ay koosteen soo dhabaymanaya. waxyaalaha noocaas markay soo bandhigaan ayaan insha Allah taala report official ku soo saarayna. waaye. su-aasha kale waxay ka timi Axmed oo Abdi oo jooga Toronto Canada. su-aasha waxa weeye xagee ayaa laga helayaa warka iyo macluumaadka mashruuca wadada Ceergaabo iyadoo qoran ama iyadoo muuqaalo iyo sawir ah? su-aashaanba waa ka jawaabi karaya wasiirkuna waa kii hadalkiisa ku daray. waxaa laga helayaa website-ka somalilandroads.com somalilandroads.com halkaas ayaa warkooda lagu helaya. wasiir miyaad wax ku daray? may walaal sida aad sheegtay somalilandroads.com baa laga helayaa. halkaasaanu ku babin karayna laakiin se iminka waanu cusubnahay waanu wadnaa ismaheedii hadday informationka hadday tahay technology-gaba waanu dhisaynaa waanu wadnaa. waxaan insha Allah taala rajaynayn halkaasi konistana loogala socon doono maalin walba. su-aasha kale waxay ka timi Yusuf Suldaan oo jooga New Jersey USA. su-aashuna waxa weeye miyaa la magacaabay shirkad ama la siiyey kontaraaga shirkadda dhisaysa wadada Ceergaabo? maya shirkadda siinayna waxaan uga guureeyaa inaanu shirkad bixino oo aanu dad waxa weeye contractor ka siino si aanu kharashka isaga yarayno. qalabaa lagu sheegay hay'adda wadooyinka qabanaysa wixii laga fursan waayo yimaado waa markiisa maalintiisa laakiin waxaan loo qorshaysanay inaan nagu qabsano. su-aasha kale waxay ka timi Maxamed Xasan oo isna jooga London UK. su-aashana dhowr qof baa iyaguna 4 qof oo kale ayuu su-aal noocaas oo kale soo weydiiyey. su-aasha waxa weeye
ma la mudeeyey waktiga ay qaadanaysa in wadadan la dhiso oo la dhameeyo miyaa estimate la sameeyey yes muddada ay qaadanayso wadada qaadanayso waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala horta waxay ku xiran tahay sidaanu dhaqaalo ugu helo oo muddada qabsato haddana dhaqaalo anagu bulshadaanu ka filaynaa dadkaanu ka dena waxaanu haynayna waa naga soo bandhignay waxaanu rajeynayaa insha allahu tacaala sidaanu dhaqaalaha ka helo ummadda marka dhaqaalaha haddii aanu ka weyno ummadda oo ay yani waxaanu filaynay bixin waayaan waa dabcan dib uga dhacaysaa laakiinse sida aan noo qofaysan ilaa 3 sanadood ugu badnaan inaanay wadadaasi ka badan baa qorshu loogu soo biidi lahay tacaala su-aasha kale waxay ka timid xuseen cilmi oo jooga Norway su-aashan dhowr qof oo kale iyaguna soo weydiiyey su-aashu waxa weeye wadadu halkee ayay maraysaa magaalooyinkee ama tuulooyinkee ayay maraysaa sida in laamika la qoondeeyey wadada sidii wadada ingiriiska halkay ka dhaweysa waa laga duway oo laga beeray surveygana insha allahu tacaala waa halka lagu ugu saalinta markii la survey gareeyey waxay ka beeraysaa wadadu inaad fadhiyo meesha loo yaqaano wadadii burco inta Chinaha ka beeraysaa markii halkaas ka beerdo 284 kilomitir surveyga warkii dambeeyay la soo siiyay injineeradu halkaas ka beeraysaa waxay maraysaa wadada dheeraad ingiriisku sameeyeen already jirtay maraysaa oo marta waridaad oo marta bakad cali xigsi oo marta gadka meesha la yaado oo marta garada oo marta xiraf weyn oo marta yufle iyo kalsheef kadibna halka xarigada ka gashay su-aasha kale waxay ka timid Axmed oo isna jooga Ohio su-aashiisu waxa weeye su-aashan dhowr qof oo kale way soo weydiiyeen wadada ilaa imika miyaa la bilaabay hawsheedii intee leeg baa la imika qabo wadada hadda surveyga gacanta lagu hayaa surveygii xagga xarigaado waxay ka soo sameeyeen ilaa 10 kilomitir baan filayaa inay ka sameeyeen iyo 15 maqbo ayay ka soo sameeyeen kilomitir surveygii ceelaf weyna way hadda joogaan surveyga gacanta ku hayaan garadagna way ka sameeyeen ilaa aqmadooda way ka sameeyeen afarta meelood baa survey la qaaday meel buu waxa laga yaabaa in la sii sameeyo 10 kilomitir ama 15 kilomitir bilowga hore loo sii bilaabo laakiin meel walba hadda surveyga waa la dhamaystiraya 200 waa la dhamaystiraya oo wuxuu ku kasuu yahay ergaabo marka laga soo bilaabayo surveyga waa 10 kilomitir oo hore la hayaa si shaqada loo sii bilaabo ayna xayirmin marka kala sii yimaado sidoo kale marka laga bilaabo in la hayo 10 kilomitir hore waa in la hayo eelku inta daal garada ka daal afarta meeloodba waa laga wadayaa biidillah tacaala su-aasha kale waxay ka timi Maxamuud Xariir oo isla jooga Gothenburg Sweden asii su-aasha laba qof oo kale way soo weydiiyeen midkood bay soo weydiiyeen su-aasha waxa weeye waxa hore u socday wadooyinka Boorama oo weyne wadada cad Laxley Berbera marka kuwa xaaladooda ka warama sidee imika wadada Ceergaabo u taabanaysa waan ka waramay waxa filayaa arrinta bixintii raaciyay laakiin meesha la yaado haddaan mar labaad ku celiyo Hargeysa iyo Berbera wadada waa wadada cusub la sameeyay wadada hore ayaa lagu sameeyaa maintainka lagu sameeyaa marbeed wadada la sameeyo hadda waxay maraysaa oo aanu marinaynaa meesha la yaado Sheekh Abdal waxaan insha Allah tacaala inay dhamaato inta sanadku dhamaato marka wadada iyada already qarashkii ku baxayay waxay diiwaano bixinay waanu diyaarinay meesha la yaado wadada kale ee Burco iyo Berbera kala baxda si leegeedana maintainka insha Allah tacaala waa la sameeyaa kuwaas waa kuwa la maintain gareynayo laakiin marka loo soo noqdo wadadooduna waa inay soo marayso wadada cad meesha la yaado Salaxleyna waa inay soo waramay halkay marayso wadada Boorama oo reer way dhamaatay oo waxna ugu hadhin tan wajaalana way socotaa oo inay soo waramay inay marayso okay su-aasha kale waxay ka timi Faarax Xuseen jooga Toronto miyay guddiga wadooyinku imanaysaa Mareykanka ama Canada ama guddiga wadada Ceergaabo I think waxaad ku darsay su-aasha hadalkaagii jawaabtu waa haa guddiga imanaysaa Mareykanka iyo Canada ana qaseenay inta naga iman karta marka kullu cid way naga iman taadiidna North su-aasha kale waxay ka timi Cabdi Maxamed jooga Columbus Ohio su-aasha waxa weeye miisaaniyadda dawladda intee in la eg ayaa ugu jirta sanadka 2014 ama maxaa u qorshaysan 2015 kana waa sheegay waa 4 million su-aasha kale Cabdi bay ka timi isna Maxamed Cabdi Axmed oo jooga Seattle Washington qurba jooga dhaqaale intee leeg ayaa laga filayaa oo qorshaha lagu daray that's good question waxaan ku filaynaa qurba jooga ilaa 4 million okay su-aasha kale Cabdilaahi Goosna UK waxaa loo baahan yahay xisaabtan iyo accountability sideebaa ugu tala gasheen inaad u samaysaan accountability waa sharaxay sida accountability loo sameeyo su-aasha kale waxay ka timi iyaduna Seattle
dawladda kharash intee la-eg ayay gelisaa wadooyinka kale sida Saood Weyne Boormis Laxley wadadaas arrintaydana waa ka jawaab taas mara su'aal ma hay weyn la xisaabtanaya intee gelisan waxa la geliyaa kharash wixii loo helaba adigu marka laakiin isku soo gudbo lacag loo milyan waa ugu saysan kilo soo dhow korata xataa laba milyan wax ku baxay wadooyinka adin 16 su'aalood baan ayaan su'aalaha inkastay farabadnaayeen aan isugu soo ururiyey runtii waxa aan jecelahay inaan ixtiraamo saacadii aynu ugu talagalnay shirka oo aynu hadda ku soo dhownahay inta aynaan xidhin shirka wasiir wixii kelmadaha gunaanadaheed odhanayso waxaan jecelahay inaan ku soo dhowo waa wada tarfiido dhammaan gobashooda mar labaad ay salaamaya waana ku mahadsantiin runtii waqtiga dheer ay dhegeysateen waana siiseen waxaanu insha Allah taala idin rajaynaa nagala qayb qaadataan muhiimada wadooyinku leeyihiin marka labada waa la sharaxay waxaan rajaynayaa insha Allah taala in wadooyinka marba mid la isugu tago awoodda la isugu geeyo oo kadibna ay suurta gasho in wax badan la qabsan karo haddii wadooyinka noocaas la qabto waxaan rajaynayaa insha Allah taala horumarkii qayb laxaad ay noo suurta gasho waxa laga yaabaa dareenka qadan dadka qaarkii laga yaabaa inay yaahdaan wadooyinkii heblaayo miyaa laga beeray waa maxay wadada ergaabo kaliya muhiimadii aan sheegay bay leedahay wadooyinkan kale waa gobol ama waa degmo kooban yani waa meel ori dalka access u leh laakiin meeshan waa meel dalka aan access u lahayn oo ka go-an oo dhib ka badan dhibtaga ay jirto sidoo kale lama dayacayo mid walba ku talagalka wixii loogu talagalay waa la samaynayaa iyo inaanu fikirin inaynu waxayni isbarbareerino ama isku lisno ama si nafsir ku jiro leeyado maxaa bilaayo loo sameeyo hebel loo sameeyo wixii dalka loo qabanayo horumar waxa loo baahan yahay si midaysan oo wadaniyad in looga wada jeesto waxaan runtii dadka qurbajooga ugu dambeyn aan odhan lahaa dadka qurbajooga waxaan dad ay u suurta gasho in haday tahay aqoon ina joogtaan meelo aqoon laga baranayo halka waxaan wasiir baan ahayo dadka ugu mashquulka badan baan haddana jaamacadda imtixaan ka geliyay casriga in badan oo ka mid inaanay u suurta gelin inay jaamacadkii ama xaadiraan ama isku dhibaan waxaan leeyahay fursad baad maanta haysataa waa kaa annagoo aan haleelaynin aan isku kalifayno fursadaha iska dayiicina fursadaha haysataan shaqo waxbarasho taakulo yani wax wada qabsi waxa weeye ha iska dayiicina wata kaleeto waxa laga yaabaa dadka qaarkii inay ku fekeraan uun qurbajooga dad dhaqaale yar inuu wadanka ama wax ku soo diiri ama cid waxtara wax noocaasa waxaan odhan lahaa oo aan qurbajooga dhammaantood u soo jeedin lahaa war dadka waxba ma tarayso inaa biilal siisaan iyaas bay ku noolaanayaan oo malihii waxba ma tarayso laakiinse waxaan uga jeedaa waxba ma tarayso waxaan leeyahay waxa weeye haddaad biil uu dependent adiga kugu noqdo oo biil unaad siiso nolol u create garan weydo qofkaa waxa laga yaabaa nolosha si indirect iyo nolosha uga dida baa laga yaabaa aan waxba qabsan waxa la warnay dadkii yani wax noloshooda ay ku tiirsadaan u create gareeya oo yey noqonin dad idinku tiirsan haddaad shaqo beeshaana idila shaqo beelo idila duma haddaad duntaana idila duma waxaan odhan lahaa dadkii isku daya qofkii wax ku biirin karaya dalka qof waliba wax laga yaaba qurbajooga cid baa ku tiirsan inuu isku dadaalo sideebaa aanay weligood kugu tiirsanaayn ay yani isu anfacaan inaad samaysaan oo kale sidoo kale waxaan kusoo gabagabaynayaa ha ku fekerin inaad dhaqaale keliya waddanka keentaan waxa ka qaalisan iyadoo aa idea keentaan waayo waxaad joogtaan dal horumaray idea kastoo aad keentaan oo dibad ka keentaan oo fiican oo dalka wax ku taraysa waxtar bay dalka waa mahadsantihi wasiir aad iyo aad baad umahadsan tahay cali aad iyo aad baad adiguna umahadsan tahay waxaan kusoo gunaanadayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan qurbajooga reer Somaliland maanta waqtigoodii na siiyey shirkani nagala soo qayb galay dhammaantiinba aad iyo aad baa umahadsan tihiin waa laynooga fadhiyaa oo waa layna sugayaa adiguna sheekh Sacad aad iyo aad baad umahadsan tahay wasiirka warbixintana siiyay aad iyo aad ugu mahadsan yahay waa sheekh Sacad wey aniguna ducada waxaa ku khatimaya sadaqa jaariya wey sida masaajid marka loo dhayso sadaqa jaariya u tahay waa jidadkuna u yihiin sadaqa jaariya marka walaalayaal waa dardaaran wixii lagu kaco rabbina rumeeyo waa hirgalaan marka rabitaama ka yeelo billahi tawfiiq waayahay sidaa iyo nabadgelyo aad iyo aad loo mahadsantiin salaamu calaykum